Asalaamu calaykum asxaabteena kusoo dhawaada janaalkeena. Maanta waxaan isla sameyn doonaa insha Allah cabitaankan. Marka hadda waxaan ku bilaabanaynaa gelaatadan aan isticmaalaa. Laba qaando ayaan uga shubanaa. Gelaatada waa isticmaali kartaa baraf hadaa u baahan tahay, laakiin gelaatada waxaan isticmaalaa adeegay kaaga dhigaysa cabitaanka. Shukulaatada Nutellaha ayaan isticmaalaa. Inta jeceshahay ayaa ku shubanay. Aniga hadda 3 qaando ayaan ka isticmaalaa. wax sonkor iyo kii dham u baahnid oo shukulaatadaas ayaa macaan kaaga dhigay ee gelaatadas wax sonkor ma ku daray. Caanaha saan isticmaalaa oo fadhiyo. Wax yar oo darsanaa marka intaas aan isku shiidaa. Wuxuu ku noqonaysaa cabitaan adag ayuu ku noqonaa, caanahaasna waa ku caawinayaan. Waxay ka fiican yihiin caanaha caadiga ah inaad kaga darsatid. Si aad u jeedin waa ka cabitaan adeeg ayaa ku shiidmaayo. Weelka aan ku shuba lahaay hadda sii diyaarsanaa wax yar oo Nutelladii ayaan isticmaalaa. Aan korka wax yar uga sameynaa qurxiis laga wadaa. Soo biyihiin waa ku diyaar. Shable ku siiyaan ku dhahay weelkii wax yar qurxisatay. Waxaa la hore u soo diyaarsaday caanaha fadhiya ama cream-ka aan soo shiitay. Ayaan rabaa inaan korka uga daro asoo diyaar ahna waa jiraa. Haddaa rabtid kaas waa isticmaali kartaa, laakiin ana hadda kan soo samaystay waa soo shiiday. Weelka dhan waa ku qurxoonaana ku dhahay waana ku macaaneena. Sidaas ayaan kor ilaa dabaq fiican aan dhisaa. Haddana wax yar oo karameel ayaan korka uga daadadinaa. Masha Allah waa u jeedin weelka sida quruxda badan oo ku soo baxaayo. Marka adoo gurigaaga jooga ayaad waxaaga sameysan kartaa, waxyaabaha ku yaala ku dardarsan kartaa kaaliska arag. Ma u baahnid inaad mar kasta suuqa wax ka soo gadatid. Ciyaalka xataa Masha Allah waad u sameyn kartaa. Casriyeera uga dhigi kartaa. Aad ayay uga helayaan waxyaabahan caawinna aad ayay u jecel yihiin. Marka asxaabtayda waxaan rajeynayaa inaad nicajabi doono maanta sida cabitaankeena u sameysanay habka fudud. Aad ka faa'iideysan doontiin hadda intaan nala soo gaartay hanaga iloolin like subscribe inaan noo saartid. Hadda hore noola joogtan waa ku mahadsantahay mar kasta daawashadaada iyo taageerida dhinacaaga aan ka helayno.